Baan salaam saabtay maanta waxay timid qaybta shanaad ee taxniina qaybta ruuxina joogto markay kulmeen namduusaan daalnay eedeeda inta Mr. Han wuxuu soo xasuusnay markii namduusaan ku dhacaa waxaan aaday guri daalnay kadib uu soo baxay dhan kale oo soo daalnay gurigooda daalnay eedeeda waxay daalnay ku dhacay sawir baqaarka cunto noo doon waxay fiisna daalnay eedeeda iyo namduusaan daalnay eedeeda waxay namduusaan ku dhacay daalnay wax badan ay ka sheekaysay maanta dowladda ilaa ay maanta u jeed farxad ay ka muuqdo namduusaan daalnay eedeeda wuxuu ku dhacay in xanuunka daalnay moogtay eedeeda waxay leedahay ma asagan wuxuu dhacay hadii ay waatana waxay leedahay hadii ay waato yoonisa kitino ay aamusaysaa kadib namduusaan daalnay eedeeda wuxuu siinay hadii dhanka waxaan arkaynaa daalnay oo xaafad u socdo waxay arkaysaa gaari Mr. Han weyn yaabisa waxaan kasoo degay Mr. Han waxaan ku leeyahay maxaad halkan ka qabanaysaa asagan wuxuu dhacay waxaan raadinay namduusaan waxay leedahay namduusaan guriga ayuu ku jiraa kadibna guriga ayuu soo wadaysaa daalnay waxay barisay eedeeda Mr. Han wuxuu dhacay namduusaan waxaan rabaa inaan si gooni kula hadlo asagan soo ismaanay wuxuu dhacay waa qaatay si fiican ayaa u qaatay haddana waa bixi kartaa asooska bixran daalnay waxay leedahay kana lacag namduusaan wuxuu dhacay daalnay sida iska bixdan ayuu leeyahay Mr. Han wuxuu dhacay malisna waa dad mali waa idin cashan karaa dib namduusaan wuxuu imaanaya Mr. Han wuxuu ku dhacay or isku bax Mr. Han wuxuu dhacay waa cashan kadib ayaan baxaya daalnay waxay leedahay maadaama labadii dheertii mid ka mid musqusha nabkeeda noo hagaajiyo labadooda waxay tartamay xagga musqusha waxay isku xiriirsanay albaabka musqusha kadib waxaan hagaajinay namduusaan Mr. Han wuxuu soo aruurinay buugaagta namduusaan wuxuu sameynay miiska Mr. Han wuxuu habeynay geeda daalnay waxay si diyaarinay cashada kadib waxa maana Mr. Han iyo namduusaan waxaan ku dhacay wax kasoo hagaajin waxa kala sameynay daalnay waxay leedahay kaalay cashaya kadib miiska cashada markay fariis Mr. Han wuxuu arkay malays inuu yaray mid namduusaan uu weyn yahay waxa fahmay daalnay weyn u bedelaysaa cashada kadib Mr. Han iyo namduusaan way soo baxeen waxaan soo dhaweynay daalnay kadib daalnay namduusaan iyo Mr. Han waxay leedahay misraacaysiin Mr. Han wuxuu namduusaan ku dhacay soo bax gurigaaga aniga ayaa ku geenayo inta kadib Mr. Han wuxuu daalnay ku dhacay 461 su'aalaad soo weydiinaysay waa ka soo jawaabay xeedan waxay leedahay waa maasantahay kadibna wuxuu arkay wax tinta ka saaran wuxuu isku dayay inuu ka qaado laakiin uu sareebay waxaan u tagay namduusaan uu ka qaadaya kadibna way soo raacayaan Mr. Han wuxuu namduusaan ku dhacay arinta waraaqada oo sheegay adees waxa uu sheegaysay namduusaan ku dhacay adees oo marina uu sheegin wasaan iskaraacay gaari jeeji kadibna uu joojinaya namduusaan soo degro wuxuu soo weydiinay namduusaan wuxuu ku dhacay adeeg musiirosa Mr. Han wuxuu dhacay wajiga qof musiir ah ku leeyahay uu nagtagaya dhanka daalnay waxay daalnay ku dhacaysaa daalnay wada namduusaan midka jecesha daalnay waxay leedahay namduusaan waxa ka wadayay waxay ku dhacaysaa midka waraaqada ku soo qanjiray midka jooga daalnay waxay leedahay soo hadlay ma maxaad ka saaraysaa waxay leedahay laakiin midka adiga ka heshay daalnay waxay leedahay sheekad dhanka waxaan arkaynaa Mr. Han oo gurigiisa jooga waxaan kusoo laabanay soo sheegay namduusaan weydnay oo ahayd musiirosa kadibna wuxuu arkay geedkii daalnay oo keenaysay namduusaan uu soo qaaday waxaan ku daray taraashka haweenkaas waxaan arkaynaa tiimka daalnay oo ka tashanay sidii ay u qarash galeen lahaayeen markii 10 milyan la siiyo waxay leedahay waxa laga yaabaa qofka binay bishii 2 milyan ku soo aado iyagana waxaan dhahayaa 2 milyan dhana taasaan waxay leedahay 2 milyan lacag yar waa wiilgeeb 2 milyan ka badan ay soo gali jirtay daalnay waxay leedahay waxaan haysnaa 6 bilood 6 bilood waxaan rabaa inaan natiijada qurux badan ka soo saarno anaga ay soo baxayaan waxaan hadlay juhu waxaan dhahayaa malkiyash waxay fiirnayaan qaabkan lacagta ma hareynayaan kadibna lacagta ay noo kordhinayaan kadibna ay soo baxayaan dhanka waxaan arkaynaa namduusaan nadeerkiisa wuxuu arkay namduusaan iyo tiimkiisa daalnay waxay leedahay ayaa namduusaan wuxuu dhahayaa nadeerkay isbarnahan kadibna wuxuu soo waday xafiiskooda kadib wuxuu fartu u xiray qalab wuxuu ku dhahayaa wuxuu sheegay dareenkiina saan waxay gacantiisa qabanaysaa hoonsuun kadibna uu shaqeynaya waxay gacantiisa saaraysaa namduusaan daalnay markay aragtay muhiimseeraysaa kadibna gacanteeda ayay ka dejinaysaa waxay soo jeesnaysaa namduusaan nadeerkiisa waxaan ku leeyahay maxaa loo baahan yahay inaad tijaabino saan wuxuu dhahayaa qalabkan u jeedin waa fikradan aniga keenay waxaan rabaa inaad soo tijaabisin aad niyi keentay warbixin fiican daalnay namduusaan way isku dhafsanaayeen kadib habeenka markay gaartay kooran way isku imaanayaan qof walba wuxuu sharxayaa mashruuc uu soo diyaariyay Joosaan waxay arkaysaa juuso waxay leedahay wakiilka dawladda oo soo baxaysa dhankan waxaan arkaynaa marwiyo oo kormeeraysa xafiisyada waxaan arkaysaa namduusaan oo sharxayo mashruuc habeenkaas waxaan arkaynaa namduusaan iyo daalnay oo soo socda daalnay waxay kor dheer ka arkaysaa Mr. Han oo socdo inuu wacaysa mana maqlaayo dibna way wacaysaa asagan uu ku damnaya iyadana waxay leedahay aniga u jeedo ayuu igu damnay namduusaan wuxuu dhahayaa waxa laga yaabaa inuu mashquulsan yahay dhankan waxaan arkaynaa namduusaan asxaabtiisa oo ka sheekaysnaa tiimka injay waxaan dhahayaan kuwan u meeka kuwa company ka tagi doono kadib waxa gadaashood ka hadlay saaxiibkooda wuxuu dhahayaa meeshan kama tagayn faa'iido badan ayaan ku qabnaa goorna mashruuc ayaan soo xareen rabnaa waan dabaaldegaynaa namduusaan asxaabtiisa waxay imaanayaan tiimka inteeda kale waxaan u sheegayaa mashruuc ay goor soo xareen rabaan tiimka injay saan waxay leedahay way dadaalaysaa injay kadib waxa hadda juhu wuxuu dhahayaa mashruucaas waa qiyaan waxaan ka caawiyay adeerkeeda dhankan waxaan arkaynaa injay hooyadeed waxay imaanaysaa mid saliid loo gado waxay rabtay inay saliid gadato marwada meesha shaqaynaysa waxay leedahay kaarkaaga wuxuu egyahay in la xiray ayadana way yaabaysaa dhankan waxaan arkaynaa injay adeerkeeda iyo wiilka uu dhalay waxaan ka hormaanaysa injay waxay leedahay maalmaan inta ayaan ku arkoy maxaad ka qabanaysaa asagan wuxuu dhahay waxbaan isku aadinayaa waxaan rabaa inaad tiknoolajiyada horumariyo adigna aad garab noo siiso ayadana waxay leedahay uun baani ay shaqadeeda leh kor ka fiirso wayna ka tagaysaa waxaan arkaynaa inay daalnay arkaysa dhankan waxaan arkaynaa marwiyo waxaan u imaanayaa Mr. Han wuxuu dhahay waxaan maqlay injay company aad contract la saxiixatay
seexatay ayadana waxay dhahaysaa run waay kadibna waxay dhahaysaa gabdha waa injee la yiraahdo mashruuc 300 ayay la wareegtay Farxaan wuxuu dhahay la talin xitaa uma baahno waxaan arkaynaa inay injee maqlaysay wayna ku farxaysaa Maryan waxay dhahaysaa gabdha waxaan arag maxay u sameynaysaa Farxaan wuxuu dhahay lacag darteeda ay u sameynaysaa Maryan waxay dhahaysaa anay saas ilmaha gabdhan gabdhaha kale way ka duwan tahay wax kale ay ku fikiraysaa Farxaan iyo Maryan waxay arkayaan waraaqad meesh ku dhagan oo ay ku qoran tahay argudisho wayna naxayaan dhanka injeeyada saat waxa ka hormaanaysaa daalni waxay dhahaysaa bale waxaan maqlaynaa Johan company aad mashruuc la saxiixatay mashruucana samaystay dad badan ayaa ka caawiyay ayuu mashruuc ku fudaaday hadalkiisa waxay dhahaysaa waxaan maqlaynaa ninka company iskale iyo aabaa inay isku fiican yihiin taasna uu ku maalgeliyay injeen waxay dhahaysaa maxsuusta maankii uu tartanka socday adigana aad hurdaysay maalinkaas ay ninkaas kulmay mashruucigan kala dhacay karkiisa uu siiyay habeenan wuxuu ula kuleeyay mala hawshaas adna ilaa watay wayna ka tagaysaa kadibna soo jeesanaysaa waxay ku dhahaysaa meelaanta ku mashquulsanta waxa laga rabaa inaa mashruuc gacanta ku dhigtid xafiiskaaga ka shaqaysid wayna ka tagaysaa kadib daalni waxay imaanaysaa tiimka inteeda kale waxay dhahaysaa waxaan u baahan yahay inaan mashruuc badan gacanta ku dhigno markaas kadib uun baahnay inaan 6 bilood shaqeyno maalinka habeenkeed waxaan arkaynaa daalni oo imaanaysa naamduusaan waxay ku dhahaysaa garaan ganacsi rabtina bilowd laakiin qarash badan ayaa nagala baahan yahay inta kadib waxa sidan filaan kor soo koraa Mastaraan wuxuu arkaynaa naamduusaan iyo daalni oo qoslay uuna ka tagayaa naamduusaan wuxuu daalni ku dhayaa daalni tooshan san kor wixii dhacay waraaqadii aan isku qoraynay soo qaasay inaanay hore waraaqad isku qorin oo kale daalni waxay dhahaysaa sabab asagan wuxuu dhayaa waqtigaas fashilayaan ahaadeen waxa diimadeynaysa qof qatar kadibna gacanta ay soo qabsanayaan wayna soo baxayaan markaas waxaan aragnaa Mastaraan oo soo shaqadiis waxa imaanaysa security-ga hore ay tahay in qadhaxaya geedkan waxa ku dhigay qashinka geedaan loo baahnaan qashinka luurid ee waxa loo baahan yahay in la xanaaneeyo uu dhiibaya wuuna ka tagayaa Mastaraan oo soo qaadanaya kadib markii uu shaqadii maal wuxuu arkay daalni oo baakin ku sugaysa waxa ku dhashay Mastaraan maamaana waa ku leeyahay asagan wuxuu dhahay waxaan ku mashquulsanahay maalgelin kadib waxay siinaysaa bacdi ay u keentay wuxuu ku dhahay maxaa waxaan ay u keentay iyo maxay wax maqlaado gacanyaraa la hadlaysi loo dheeysid bacay keen markaas dadkii man hore ay ku soo qaaday uu ka qaanay wuuna ka tagayaa kadib wuxuu imaanay xafiiskiisa wuxuu imaanay gacanyariis wuxuu ku dhahay maxay intaan email ku soo dirtay daalni asagan wuxuu dhahay waxay soo bandhigeen mashruuc cusub kadib wuxuu soo xasuusnay maanta shirku jiyaan sidii la taliyaasha kale kii uu injii adeerkeedu u dhahay halkan joogto wax soo saar badan waad isticmaali kartiin xasuusta kadib Mastaraan wuxuu gacanyariis ku dhahay oo soo fiirtiin example shirkooda halka uu marayo halka injii hooyada waxa soo baxay injii adeerkeedu way ku dhaminaysaa dhanka waxaan arkaynaa daalni iyo Joosahay daalni waxay Joosahay ku dhahaysaa maxaad isku rabtay bas ayaan iska raacibnay Joosahay waxay dhahaysaa maadaama madaxdina tahay waxa laga rabaa inaan dadka hoos u fiirinin kadib wuxuu imaanay injii adeerkeedu waan qofka mashruuca u maalgelin rabo asagan wuxuu dhahay aniga teknolojiyad kuma fiicni wuuna baxaya waxaan buskis galay wiilkiisa wuxuu dhahayaa maadaama injii walaasheeda tahay waxaan ku dhaqmayaa sidii aan injii u dhaqmi lahaa inta waxaan arkaynaa Mastaraan wuxuu gacanyariis ku dhahayaa imkoon biru mashruuca ma fiirsi asagan wuxuu ku dhahayaa waxay u baahan yihiin shaqo badan loo qabto dhanka saanka wuxuu daalni iyo injii ku dhahayaa waxa leedin kaga baahan yahay in soo aruursiin 100 kun oo sawiraan daalni waxay dhahaysaa anaga xogta ma aruurinay wax soo saaryaal ayaan nahay saanka wuxuu dhahayaa 100 kun oo sawirada faa'iido badan ayaa ku jirto waxa loo baahan yahay in dad teknolojiyad ku fiican soo aruuriyaan daalni iyo naamduusaan waxay imaanayeen injii adeerkeeda wuxuu ku dhahay maadaama dhalinyartii waxa loo baahan yahay in dadaashiin naamduusaan wuxuu dhahay halkan u baahdeen miya asagan wuxuu dhahay halkan oo baahanahay injii adeerkeeda wuxuu dhahay website-kii ma fiiray laakiin ma shidno loogadan dad ku darsan wuu shidmay markaas 100 milyan ay ku guuleysnayna injii adeerkeeda wuxuu daalni ku dhahay maanta ay hooyada injii soo raacaysa adeeg maxaa soo raacayday saacadan aabaaga ayaa ahaan la injii way murugoonaysaa sadarkiisii wuxuu dhahay markaas waa ku xumaan jir xaalad adag ay aad ku jirto naamduusaan waxaan aqay wuxuu joognay dhalmeystaaday wuxuu daalni ku dhahay daalni inay mashruuca masiibada kar uu ka tagayaa daalni way ka tagaysaa waxay uu tagaysaa saqafka asagan wuxuu ku dhahayaa waan sadkeen way ninkan aniga darteeda iyo cadow kaaga dhiganayaa daalni waxay dhahaysaa mashruuca oo dhan waan iska dhaafayna mashruuc tarad adiga aan soo bandhigay iskaas ayaan ka shaqeynaynaa naamduusaan uu soo xasuusnaya kadib naamduusaan wuxuu kale habeenkii ku fikiraa inuu qalabka soo saaro sabab la hadlay wuxuu dhahay hadii aan dadkan doolaashin loo soo celin karin waa inaan soo saaraa qalab caawinayo inka oo dhan fikirkaas way ka wada helayaan xasuusta kadib daalni waxay naamduusaan ku dhahaysaa maantaas marka fikirkaas ii sheegtay ayaan uga helay mashruucaas ayaan ka shaqeynaynaa dhankan waxaan arkaynaa Samsu oo jooga xafiiska abiis wuxuuna abiis ku dhahayaa dadka waa in booliiska loo sheegaa oo salaam daalni iyo naamduusaan daalni waxay dhahaysay dhaawac soo gaaray naamduusaan wuxuu soo weydiinaya daalni wuxuu ku dhahayaa maxaad igu jeclaatay idan waxay dhahaysay su'aashaas oo hore ay ii weydiisay waxaan ku jeclaaday gacmahaaga habeenkaas waxaan arkaynaa tiimka oo safri daalni waxay arkaysaa waxay dhahaysaa sida iyagas uu wuxuu hagaa mashruuc saas oo kale taa ma sameynaa naamduusaan wuxuu dhahayaa waxaan imaanaya xafiiskooda waxaan soo qaadan sameecada waxaad weydiinaysaa su'aashaad rabtid taleefanka meeshaad rabtid ayaa u aadinaysaa labadooda ma isku xiraa kadib daalni way soo baxaysaa waxaynu imaanaysaa Mastaraan wuxuu dhahayaa mashruucaadii soo dirtay waan arkay fikirkan dooy mid hirgala maxaa mar uu dhaqaaq weyseen hadalkooda waxaa dhageysanaysaa Marwayo daalni waxay dhahaysaa laakiin ganacsi la mid ah Ameerika ka jiro asagan wuxuu dhahayaa laakiin idinkoo bilow ma rabtaa inaad ganacsi meeshaas ka bilowdaan daalni waxay dhahaysaa waa saman karnaa Mastaraan wuxuu dhahayaa company Samsung Techsan u rabo inuu horumar qof u rabto malaha inuu u horumariyo laakiin aniga waxa ku qanciyay ma keenooyin
iyaduna waxay dhahaysaa hadaa ku qancay ka waran waxay farta u gelinaysaa baalku namdusaan adeerkiisa siinayay waxay dhahaysaa haddii uu bahalkaan nala soo daaro waxaan u qaadanaya inaan ku qanciyey dhankan waxaan arkaynaa daalni ayadeeda waxaan ogaanaynaa inay mindheeda mar ka dambe sii daciifayaan aan soo laaban daalni iyo mastiraan waxaa soo daarma qalbka gacanta u xirnaa daalnin waxay dhahaysaa waxaa ii muuqatay inaa hadalkii ku qanacday mastiraan wuxuu dhahay wadadan aad ay u dheer tahay ku fududaan daalnin waxay dhahaysaa mar hore ayaan ka fikiray wayna ka tegaysaa kadib mastiraan waxaa maaj mariyo waxayna ku dhahaysaa qofka dii uu madax yahay si uu guulaysto wax walba ayuu samayn karaa mastiraan wuxuu sheegaya in inje iyo daalni ay walaalo yihiin marwiyaan way yaabaysaa mastiraan wuxuu dhahayaa markay labadooda aad ka tageen kalmeel ay kusoo kalkoreen waxaa macquula gabadha wiifo u saaray inay noqon karto daalni dhankan waxaan arkaynaa daalni oo ku jafaysa inje adeerkeeda waxaan maqlaysa inje waxayna ku dhahaysaa waxaasoo dhan hortiis maa ka dhahdid daalnin waxay dhahaysaa waxaan wax ka daran ayaan kusoo sameeyey injeena waxay dhahaysaa haa waa maqlay daalnin waxay ku dhahaysaa markii aan yaray cuntada xun oo dhan aniga ay siin jirtay laakiin hadda waxaas ma dhacays kadib waxa uga cis joos ahaa waxay inje ku dhahaysaa shil ayaan leeyahay mar kale ayaan wada hadlaynaa wayna ka tagaysaa dhankan waxaan arkaynaa inje hooyadeeda oo boorseebad waxaa soo wacay inje adeerkeeda wuxuuna ku dhahayaa ugu dambeyn taleefanka waa qabtay iyadana waxay ku dhahaysaa kareerkaygii fura isaguna wuxuu ku dhahayaa waan kuu furaya laakiin hal shardi ayaan wataa inje waa inaad guriga kusoo celisaa kadibna way ku daminaysaa waxay nuucaysaa inje wayna wada kulmaya waxay gabadheeda ku dhahaysaa guriga ka tagta ayaa maqlay xaggee deganta iyadana waxay dhahaysaa abaarmid tusaanba kusoo dhow ayaan deganahay hooyadeedana waxay ku dhahaysaa abaa kambanigiis ma dib uulaaso injeena way xanaaqaysaa iyadoo bix rabtana hooyadeed waxay ku dhahaysaa iska dhaaf soo fariiso dhan kale waxaan arkaynaa mastiraan iyo daalni mastiraan wuxuu daalni soo diyaariyey liis dheer oo ay ku qoran yihiin kambaniyada rabo inay maalgeliyaan kambaniyada hadda soo kacayo kadib way mahad celinaysaa soo bix raban waxay ku dhahaysaa dhalashada goormee waaye isagana wuxuu dhahay todobada meeba iyadana way yaabaysaa wuxuuna dhahayaa nin namdusaan hal maalin ayaan wada dhalanay waxaan arkay namdusaan maalinka habeenkeed waxaan arkaynaa namdusaan iyo asxaabtiisa oo shaqaynayo subax marka gaaldaalni waxay soo aadaysaa kambani kamid ah kambaniyaasha uu mastiraan liiska uu soo qorayo waxay ku dhahaysaa kambanigeen wuxuu soo saaray lujan program la dhaho oo loogu talgalay dadka indhoolayaasha isagana wuxuu ku dhahayaa kaarkaana si anaga ayaa kusoo wici doono ayadana way kasoo tegaysaa waxayna tegaysaa kambani kale waxayna u sharxaysaa mashruuceeda kambani kasoo diidan waxay saaraysaa calaamo gaduuda ku xigta ayadoo ula hadlaysa kambani saxaad maamulihiisa waxay arkaysaa ayadoo agteeda maraysa waxaan ku dhahaysaa aniga waxaan haysiiyo kambani Samsung Tech waxaan rabaa inaan mashruuca email geliso ayadana waxay dhahaysaa hadda meel ayaan socno daalnin waxay dhahaysaa aniga hore ayaa kuusii raacaya wadada ku socnaya mashruuca ay kuusii sharxaya kadibna way soo wada raacayaan way u sharxaysaa mashruucooda kadib meesha ay rabto markay soo gaarto marwada waxay ku dhahaysaa markay ku geeya daalnin waxay dhahaysaa guriga imeynaa kama fogo wadan waxay dhahaysaa saacadda ma gelinaysa markan shaqadeena aad ayay noogu badan tahay laakiin sanadka dambe lambar 1 ayaa idinka dhigayna daalnin way kasoo tegaysaa kadib ayadoo kasada meelay marta ayaa waxaa u imaanaya mastiraan wuxuuna ku dhahayaa soo bax gaari soo raac wayna soo wada raacayaan waxay dhahaysaa maxaad halkan ka qabanaysaa isagana wuxuu dhahay meesha mar qaar ayaan iska imaadaa isagana wuxuu dhahay waxaan qalina habeenaan nadan soo jeeday wax yar iska seexo waxay dhahaysaa ma jeclina qof gaariga isku seexda kadibna hurda ayaa tagayso kadibna gurigeeda ayuu keenaya wayna soo kacaysaa waxaan dhahaysaa aniga hurda isagana wuxuu dhahay haabaad hurday waxaadna ku hurday gaarigu qof leeyahay way mahad celinaysaa kadibna wuxuu ku dhahay teknolojiyada aad soo saarteen waa inaad ka dhigtaan barnaamijka codka haddii kale qarshaad badan ayaa idinka gala qarshaadkaasna waa ku khasaari kartaan iyadana waxay dhahaysaa laakiin doosaan wuxuu ku fikiraynaa midaan sameyna maaysaatiinku waxaynu sheegayaan inay ku guuleysteen samaynta applicationka kadibna waxay go'aansanayaan inay dhigaan application play storeka wayna dhigayaan kadib waxaan arkaynaa daalni ayadeeda u duxaysanayaan wayna soo baxayaan waxay imaanayaan gurigooda waxay arkaysaa albaabka fur loo furaayo waxayna dhahaysaa albaabkiis furaaba ayadeena waxay ku dhahaysaa wuu jabay gudaha markay soo galaan daalni waxay ayadeeda u sheegaysaa inay sameeyaan abka indhoolayaasha fikirkaasina uu lahaa namdusaan waxay ayadeeda tusinaysaa siduu wax kastuu sheegaya ayadeena waxay dhahaysaa beel waa kadib ayadeeda markay qolkeeda gasho waxay soo degsanaysaa applicationka waxayna ku dhahaysaa buuggaan iyo aqri dhankan waxaan arkaynaa tinkoo fiirinaya beej waxaa soo galaya namdusaan adeerkiisa wuxuuna ku dhahaa aniga garab miya iga baahantii namdusaan wuxuu dhahaa kadib waa maskaxda ku haysa isaga wuxuu dhahaa aniga fikir la igu imaan wuuna ka tegaya habeenka markay gaartiinka oo dhan way soo wada raacayaan waxayna imaanayaan maqaaxi dhankan namdusaan adeerkiisa wuxuu tegaya namdusaan familkiisa namdusaan hooyadiisina waxay dhahaysaa inta maxaad ka qabanaysaa isaga wuxuu dhahay waxaan u baahnaa sawirka baaqiyo namdusaan kadib sawir ayuu ka qaadanaya wuuna baxaya dhankan waxaan arkaynaa tiimka saambu kasoo wadahabayo kadib waxaan arkaynaa ninkan oo lagu magacaabo baag wuxuuna arkaya sawir uu namdusaan adeerkiisa soo dhigay beejkiisa kadibna wuu soo degsanaya dhankan waxaan arkaynaa namdusaan oo daalni keenaya gurigeeda daalni ayadeeda waxay namdusaan siinaysaa waraaqad ay kusoo qortay warbixin waxayna ku dhahaysaa waad mahadsan tahay applicationka aad samaysay wuxuu iga caawin doonaa mustaqbalka waad ku mahadsan tahay daawashadaada waa inoo xalqad xigta dhanka laagteena geejiya bye bye